reekuumade iska daaya walbahaarka yacni marka ay dhimato 16 oo nin oo absama ah daacuun umbaalayn kara iyo duufaan ilaahay u keenay yacni mareexaan iyo dawlad iyo batac horta ma dhamayn karto oo hubaysan oo dhamaystiran dhan walba yaa horta meesha jooga inuu rabbigay daacuun u keeno waa gaar duufaano dadka halaagay inuu ilaahay galiyana waa gaar laakiin gacan bilow aadni never cabsi loogama qabataa ayada ka mid baana ragaanu waxba hayga walbahaarina ilaahay baan ku dhaartay inaan been ku sheegayn 48 gaari oo seeka oo ah iyo 48 dashiike 15 jiib 10 time intaas hadda hortayda taagan 18 suuq 24 hubka intaa la eg oo 3 shilka ah ayaguna aan ka ilaaway madax hor taaganta taliska ilaalinayso ya hortayda taagan ma garatay qaybta kale ee afmadowna waa la mid qaybta goshana waa la mid ee baarsan guuni degan kismaayo iyo madaxtooyana warkeedaba daa ma garat ragga cududaas leh cidii liqi lahayd maraykanna iyo ruush hadday isbahaystaan anagu ma qabna in ay wax ka qaadi karaan oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodiiba joog ma garat walbahaar la'aan iyo u soo shaqaysta oo dalkiiniyo nabada u imaada oo idiin hayno maxaa ku soo haray buunda la goyn iyo shabaab baa kan yeeli iyo wartaa haday gooyaan tu cusub baan wadanaa wallahi saam tareelkeedii wadato oo hadda ay Kenya nasiisay 4 buundaan wadana ur guuto waliba waxay wadataa hal buundo oo loogu talagalay webiga meesha ay kaga soo aado inay aayar ku tuurato oo aayar gaarigu ka boodo taangi Etoobiyana oo uu farmaajo watan waanu haysanaa waxaan ku shidi lahayn jeep baa socoto P10 baa socdo 75 baa socdo war maxay idinku dhacay idinka walbahaarka maas in liishada maxay tahay lawaahatul lil bashari RT5ki iyo ma 30ki iyo da 30ki baa harbeelay halkan oo iyaduna ka ilaaway guuto waliba hal da 30 iyo hal ma 30 iyo waxay wadataa hal jante saddexda qori bay wadataa xagee aniga Itoobiya Soomaaliya kugu gubatay ma jigjigay qaadatay inay Kismaayo qaadato ahay waa kaafiye kala dheeriniyo kaafiye kala dheeri weeyo ma garad webigana buundooyinkoodii waan haysanaa awoodda ciidana waa wadanaa maxaa ku soo haray baar dheere naftu haddaysan iga bixin lugaha waan la geliniyo badil haddaan la qaadin hada xaqullahi la yoran Allah weyn ma ku dhaartay inaan labada lugood la istaagi baar dheere inaan lugaha la gelin Allah weyn igu ogi haddii ilaahay cimrigayga inta ku sameeyay ka sokaysa haddaan ku dhintay hada xaraan cilayk waan ugu talagal horta taaka walbahaar loo ninka cawiyahane 10 jirkiisa Kenya intii laga qaaday haddana 45 jirka ee alafu aniga waxaan bacdi hoy baar dheeraan ku dhashay ma ogto gurigayn waan tagta ku hay haddaad aragto waa shahaadan gaal iyo islaam hor istaagi kara uusan jirin ilaahay baa igu ginaana qowl been ku sheegaynin iyo ba hadii ilaahay ku soo ogolaayo ku tiro ku taano iyo war beeriyo xaalad abuur iyo midna inuu san eraygaasi ahayn aan hadda kugula hadlahay ma garad meeshani waa weeyo 16 oo ciidan oo difaaca hore indhaha hore iyo 16 kayd ah yaa horta meesha taaganiyo oo gaadiidkoodii waxa xusuusanay haddii aad hadda dhex timaado oo saa u soo dhex taagto dawladdiisa aad barkoob iyo 20 Oktoobar marayso ilaahay ba igu ogbaad xusuusan waad ilmayni oo cutub ah qaybtii bulshada militaarada
qaybtii madaafiicda qaybtii gaadiidka qaybtii afantariga saas u kala habaysan oo urur iyo guto iyo unug oo la kala amar qaadan hayo oo nin la murmahayo iyo nin leen hadii ilaahay ku sama ogolaay reeh bal baatay baca min aan jirin iyo laba wada murmayso meeshii la dagaba xabsi baa laga sameeyaa dhulka hoostiisa oo la qodi oo cagaf qodi ninkii yiraahdo rabaa in lagu shido ee la arkaa qabyaalad iyo qurun iyo istabamar iyo bacaq asagoo oo wado in halka aayar lagu dhex tuuro oo kudkuun ku cuno oo xoolaha neefka maanta la qalay calooshiisi iyo qurunkiisi lagu sii shubo yaa lagu dhex tuuri hadal ma jiraniyo nin ka leexan kara iyo nin hadal daba marin kara iyo nin la xadi kara midna ma jiro mareexan ba ku soo had kan baruursi hadayna ku dhicin been ma ku sheeganiyo ama aynan istawi soo oranay ogaadeen oo aynan saynta ku qabsan waxaan ku sheegay been weeyay hadalkaasi noloshaadi hadal aan ku sheegay rumaysan intaadii dhici way gabagabadii dhuuso mareef hadayna dib u xusuusanin meeshan ka taabtay ay baa ka taabtay farmaajo baratay neef adduunyada aad ku haro sababta waxa la isugu tagay baar dheer annaga calaamay la fadhiyaan moogta afartan jir awliyahanoo ku dhashayna waa wadaay moogta yaa oo le abay beertaydii iyo bartaydii halkan ahayd aan badanay hooyada igu hoos dhashayda ku hayo bacdi alafu maalinkii igu dambeysay eganaytan siyeelo waa ka umaade buguleeya iyo madoogaashe yaa ninkaas aan wadaay moogta waa kaafiye kale dheerinayo oo guryahoodii garan hayo iyo meesha ay ku yaaleen oo suburloogadii wataan wadnaayo moogta suburloogadii dawligeeda siyaa darra wadaa ururkan hadda anigu aan ka midka ayaan horjoogaha u ahay 280 kan 120 nin baa iyaga ah 120 kuna 120 kuna 20 oo reebaari ahayd mooyee 100 ku waa reegadood waa reef wax ree cali ree waafat ma garad dhammaantoodna baar dheer ay ku dhasheen allahu akbar yaa kala kari dadkaas walaalo منبا غوريسي بيرتيسي laga hor istaag waa maya marixana anaga ale yaana waxay la mid tahay hadii alla ku soo ogoliyay waxay ma Soomaalidu ku maamaahay jirtay 60 jirka dhul baxantay iyo 20 jirka habar yoonis way isku miyir diima sababtoo ah wuxuu ogaay 60 jirkani asagoo iska la laascaano 20 jirkana wuxuu indhaha ku kala qaaday asagoo laascaana ka cabahay waa kaafiye kale dheeri marka ما قرت هذا وحاتاجن لحنا تشركن ان ابسمه إنا كوماله إنا بحتناado iyo wiilkan marreexan ilaa 20 jirka ee baar dheer ku dhashay googtay waa kaafiye kala dheeri maxaa diidi marka in kombaruursi ka dhaco garbaari lagu gabagabeeyo hanti waxay hanti iyo dumar iyo naag leeyihiin waa may ana ku tusi walaal ilaahay cimrigaana ha ku simo midaasi horta midaas weeyo ka walbaar laada niyo dalka iyo dadka u soo shaqaysta oo idinko hantiya wato oo magaalooyinkii iyo dalkii bu'aala dhisi kara oo baar dheer dhisi kara oo kismaayo dhisi kara oo jilib dhisi kara niyo dalka imaado oo wada tay qaba aydu ku dhacay walbaarkan iyo waxan la ii soo sheegay aniga lawaahatul lil bashar war koru kaadiya nimayo oo ilaahay baa idinku dhaariya hagar dadka xagelinina idinkuna wixii aad xoogiini baad nagala tagteen xoolihiina nagala tagin oo wixii taakula iyo wixii ehelnima oo soo dira oo isku tashada oo cidnaha nagu halaynina si daawiciina iyo daawada ragaas ilaa dawladda Kenya nodobada ku heena siyaasadana waa iska yar dhile moogtahay yaa aad noo caawisaan حنا نميو أيضا تها كول بهار لآذا طلقني أنا قبلها مرت وضف فرنا نشوني وأنا قبل ما أنت ذهب كده سوق الضحلو رصاصها الأساسية يعني كل ده قال مني قومية ضدا أو صومالية مع الله ما أنت وضي هوي إلهي من قلت دارته سجال يتبين جاري وأن وحك للسدين oo wada saamtareela oo rag absama saamtareeladaas leeyahay oo aan dawladii lahayn yaa Yuusuf yey rafaastu ka koreysaa 1 mitir geedo loo subsurayniyo
geedaan la sursuray geedo markaasuu gorodku jiiq leeyahay macdallaahi baashii hiblay baa maanta soo gaday sanduuq rasaasi la oran jiray ma hayniyo in amartiis loo keeni jiray lawaaxatu lil bashar waxa kaaga daran gaajo ma taalo qosharoogii sidaan loo axmaaraa yaay kalluunkii qosharaha ahaa ee baasha daasada ku jirtay iyo haddii ilaahay kuu sameeyo bariiska bacaysan ee warshadaysan ee basal waxaan xaargaal wixii noo oran jiray magriwaagii 7 jaarey montada mareefay fadaad ay gaaladu inoo keeni jirtay wixii oo miidhan baa meeshan yaa bakaaran caanaha uu siisiiday yaala daarta wadashaan war xaggaasina niyo waanu ka dheelitiran oo ragga baahi iyo rasaas la'aan midna ma hayso inta yare kharash la'aanta ana hadda markii nima kale aanu riixno annaga wadan dalka annaga uga soo saaran doonee idinkuna wixii tabartiina ahna gabina dal iyo dibadba aynu isku tashano dadkiinan kuumade ee joogo qurbahow dalkana u soo shaqaystay idinka u maqan annagu ama waanu dhiman ama waanu burburi oo raggan anigana dinaalay dhimasha diyaarayo Allah weyn ugu ogyahay inaan qowl been idin sheegayn haddana tii horana yacna ninkii kulli yaqaan kobti aan ka taagnaa aad baa loo garan tanna kobti aan ka taagnaa aad baa loo ogyahay oo heerkan kuumada aad buu u ogyahay ma garat haddana alxamdulillah wixii hore ana ilaahay baa iga soo bixiya tanna alla un baa iga badbaadini laakiin anigu inaan ka badbaado diyaar u mishi wuxuu alla ii qorayna waay maayo horay baan ahay ma garateen laakiin idinkuna ilmaade rayaalow yuusufow ragga adiga kula mida yaa baraaruji oo tolkeen ee kuumada in ay dalkoodii wax u qabtaan ha isku dayaan awood maanta kaa sarraysana wallaahi baysan joogin Soomaaliya dawladdan ku meel anu federaal ormahay dawladdan ku meel gaarka farmaajo xukumo meel baan saarinayo